اوكي حسن شيخ محمود iyo ra'iisul wasaaraha oo dhahay Puntland way burburis hadaysa joojin garab istaag reer la saacanood maxaad ka dhihi حسن شيخ محمود waa nin tuug wadanka dhan gatay waxaan leeyahay sababri baan nooga hadhay intaan gooc cad kaaga saari lahayn hadii rabbi idmo xaqana waa godoon baa ka haysta halkaana Puntland baa kaaga soo jeeda hadii la rumo waano todobari Hargeysa hadii ilaahaydaan ka dhigo السلام عليكم سلام صحابتي مeel kasta iga daawanayaan meel kasta iga la socotaan YouTube ka subscribe ka isaara page ka follow-ga share ta wax kasta waa xageena maanta maxaan imaanay suuqa barnaamijkan duumana indhihiina noo macalna ina dhaqaajiya soo dhaw waa dhaw walaal sheekhaale walaal ebaag xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha oo dhahay Puntland way baabaas hadaysa joogan garab istaag reer la saacanood soo aragtaa walaal waxaan u arkaa qof aan tiisi aan midayn karin inuu tukalo horta inuu galo waa wax laga maarmaana weey Puntland 24 saacana ku burburi mayso 24 sanana ku burburi mayso Puntland waxay leedahay hoggaan midaysan dad midaysan niyad iyo qalbina ku wada midaysan hal aragtina wada leh waana muqaddis reer la sacaano inay maanta la xoreeyo oo hawshooda iyo ay mustaqbalkooda ay ka tashtaan ra'iisul wasaarihi talada ku matalhayay 4.5 ka ku matalhayayna hadduu maanta taladiisi gabay waxaan leenahay ra'iisul wasaare wax lagu soo mariyay inaad qaadatid ma ahane waxa aad maskaxdaada kala imaatid 4.5 baa tahay talada dalka adaa ugu sareeya darajada labaad ee wadanka uu leeyahay adaa haysta la sacaanana maanta inaad maanta saas u liidid ma madana ra'iisul wasaare waxaan ku leenahay bal dib isugu laabo ra'iisul wasaare soo dhawlaan bismillaahir rahmaanir rahiim anigu Cabdulqaadir Jaamac Faarax oo ka soo jeedo gobolka Mudug oo reer Puntland waxaan leeyahay Xasan Sheekh darajo aadan lahayn baa haysataa Puntland waa ka balaaqadee dhahay waayo hadoo Soomaaliya baa qof iyo cod gaari weyday annagoo reer Puntlandna waa gaaray waxaan ku leeyahay xaafadaada London waa u dhoofi weyday hadda caalamka waad ka xayiran tahay insha Allah bilkariim waxaan ku sii gaarsiin doonaa madaxda ama dawladda in afarta qaaradood maalinta dambe tuujis lagu galiyo fil Soomaaliya ka soo bixi weydid inaanu anagu ka soo saarno maahane Puntland ha soo faragelin hadii aad soo faragelisinna difaac baan soo ka dhiganaa maalin gudaheed baan ku xoreynaa annaga reer Puntland baan la yiraahdo mad Soomaaliyeed baan nahay Soomaaliya madaxdeediina waan nahay musabbixi waxaan leeyahay todobari baan nooga hadhay intaan gooc cad kaaga saari lahayn hadii rabbi idmo xaqana waa godoon baa ka haysta halkaana Puntland baa kaaga soo jeeda hadii la rumo waano todobari Hargeysa hadii ilaahaydaan ka dhigo intaasaan habarta musabbixiyana leeyahay soo dhawlaan waa dhaw habay walaal xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha soo aragtaas oo dhahay Puntland way burburis hadaysa joojin garab istaag reer la saacanood bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay sagaaro bad ku kaadisay naceeday muujis ninka la yiraahdo Xasan iyo kan la socda xoghaynta u ah waxa kale la yiraahdo waxay yeeli karaan Puntland ma jidho waa sagaaro bad ku kaadisay naceeday muujisay kaliya waxay muujiyeen waxa kale la yiraahdo nacay u qabaan Puntland waxay muujiyeen horumarka Puntland ka socda inaysan raalli ku ahayn doorashada dimuqraadiyadda ay qof iyo codka inaysan ku faraxsanayn taasaan leenahay Xasan Sheekh waxaan leeyahay af iyo uuraan wada jirin baan masaajidda kula jira kala soo bax af iyo uuraan wada jirin kala soo bax masaajidda ilaahay caradiisana iska ilaali ninka la yiraahdo madaxweyne Dani Puntland reer Puntland baale difaaceedana waa la wada leeyahay haday aftahay haday adin tahay Puntland waxa ugu weyn oo baqayntu ka jirta waxa weeye 8 January inay doorasho dhicin madaxweyne Dani waxaan leenahay adoo dadka reer Puntland difaaciya siyaasad ku difaaciya dan aad leedahay iyo hawlo aad ku gaara hoosta ka soo galin reer Puntland 8 January iyo dastuurka Puntland oo aan la taaban waa muqaddas labadaas reer Puntland intaas ay ku dhintaan inta laga helo madaxweyne aad iyo aad baa mahadsantiin اوكي حسن شيخ محمود iyo ra'iisul wasaaraha oo dhahay Puntland way burburis hadaysa joojin garab istaag reer la saacanood maxaad ka dhihi حسن شيخ محمود waa nin tuug wadanka dhan gatay dani baan taageersanahay reer la saacanood waa taageersanahay guul Soomaaliland waa la baabiinaya eber baa laga dhigayaa ilaa waxa la qabanayaa burco ilaa Hargeysa gacanta lagu dhigayaa harti baa qabsanaya dhulkaas oo dhan waa u dhamaatay musujudan meel ka baxal weynaya dani nolow guul dali joogo war harti thank you very much Dhulbaante Landereal Drawish thank you very much
isaaq laaya baabiya anaa nii soo socdo nii imaanay isaaq ilaa waxaan keenayaa hargeysa aan ka tuurayaa see u aragtaa walaal inuu dhahay xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha Puntland way burburaysaa hadii ay joojin garab istaag reer Laascaanood السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصوماليات بان سلاميا انت وحوي عدكيغو غاري دمانتود waa salaaminay inta naga maqan inta nala joogtaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaal magacayga horta aniga waa Ayaan Axmed Xasan haddaan ka hadlo hadalka Xasan Sheekh waxa weeye xasan iyo ra'iisul wasaare xamse horta ra'iisul wasaare isaga waxaan leenahay ninka la yiraahdo xasan sheekh shalayna Soomaali ma dooran oo waxa weeye rabitaan shacab leeyahay kuma uu imaan hadda mar hadduu rabitaan shacab leeyahay awalba waxa weeye shishay baa laga soo doortay wadan shishay laga doortay sidii looga soo doortay buu haddana meesha ku jooga anna nugumana matalo dalkayaga mana Puntland ma faragashan karo xamar ha ka taliyaan leenahay isagoo horta xamar waxa ka qabto markuu xamar wax ka bedelo markaas waxa weeye hana soo faragashada anagu Puntland waxaan leenahay waa dal iyo dad isku filan ma sha Allah shacabkayaga cod iyo calaf iyo si kastaba waanu isku filanaa anagu umana baahnin Xasan Sheekh iyo warkiisa midna waxaan leenahay ra'iisul wasaare Xamsana de isaga waxa weeye General Ayuub baa u dambeeyay hadal kale uma harsana isaga hadal uma harsana waxa weeye awal marxuum buu ahaa marxuumkii hadda waxa weeye indhaha markuu kala qaado uu ku toosay Puntland iyo Laascaanood waxaan leenahay guul iyo gobonimo Laascaanoodna cadowga waa laga xoreynaya Muuse Biixina waxa weeye de wax yar baa u hareeyay wad iyo inta anagu waxa weeye aan ay Puntland ay ka tabaabashaysanayso ilaa iyo waxaan leenahay 24 saac isagu 24 bari isagu sheegay 1000 sano oo hadda sii dimbaysa Puntland guul iyo gobonimo u rajeynina waana noo dhisanaysa Assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته okay walaal Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo dhahay Puntland way burburaysaa hadii ay joojin garab istaag reer Laascaanood soo aragtaan runtii waxaan u arkaa arrin aan meesha ku jirin shacabka Puntland iyo dawladda Puntland maanta waa midaysan yihiin ma joogaan xilli ay uu Xasan Sheekh waxa uu ka hadlayo ay ku jirdo Xasan Sheekhna mid baa ka hoos baxday Xasan Sheekhow koonfur galbeed ma aha Puntland Hirshabeellana ma aha waxa la yiraahdaa Galmudugna ma aha Galmudug wixii ka dhacay waa ogaan Dhuusanbareeb iyo Al-Sunna iyo wixii isku haystay ma aha Puntland Hirshabeelle uu fadhiyay ninkii hebelka Xuud General Xuud uu fadhiyana ma aha baydhabo wixii madaafiic ka dhacaysana waan ogeynaa ma aha Puntland shacab iyo dawlad inta waa midaysan tahay waxay federaal uga baahan tahay maanta ma jirto deymaha lagu leeyahay federaalka iyo waxaasna sida uu wasiirka qorsheynta Puntland uu sheegay annaga waxna lagu leeyahay ma aha oo waxa weeye xamar agaarka lagu cunay taasaan leeyahay ra'iisul wasaarahana intuu madaxweynaha Puntland uu ka sheegay baan uga gaabsanayaa in shaqadiisa laga haysto nina waxa weeye aan koob biya ku shubi karin inuu yiraahdo 400 oo macallimiin ah iyo waxaas runtii wax meesha ku jira maaha waxaan leenahay Xamse Cabdi Barrow wixii lagu doortay wixii aad matalaysay dib ugu laabo isxisaabi baan taa leeyahay Xasan Sheekhna wixii laga sheegay baruna Xasan Sheekh waxa la yiraahdo gabadhiisa daba joogto ujeedka u daba joogto aniga shaki weyn ku qabaa sida madaxda hore u sheegtay nin waxa weeye kaliya masaajidka markuu jira habartu gabadhu ka hadhaayo wuxuu doon ku hadlaa gabadhu masaajidka lama gashaa la yiri laakiin meelaha kale irbada daba wadaa baa la yiri nin waxa weeye waxa uu maanta ku hadlay bari isburinayo weeye nin waxa weeye aan iska warqabin weeye marka Xasan Sheekh waxa ka hoos baxday Puntland waxa ay tahay ka hoos baxday shacabka Puntland waxa way midaysan yihiin ururada ay kala yihiin waa ku midaysan yihiin marka ururada la dhahay bay kala jiraan ma ahane markii ay federaal iyo sahayn noqoto waa midaysan yihiin Laascaanoodna waa u midaysan yihiin insha Allah 15 bisha markii aanu doorashada galno foodka dhiibanno wixii ka dambeeya waxa weeye Muuse Biixi goocha cad sheegaysa waxa la isku tagayaa meel waxa weeye burcaw dhow baa la isku tagi doona insha Allah shacabka Puntland waa midaysan yihiin shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland guul baan leeyahay guul Puntland noolaato insha Allah wa bilaa tawfiiq waa dhawahay والله سو أرتي حسن شيخ محمود الرئيس والسارة حمزة عبد البر إن ده بلدنا ويبربروا صديسة جوجين قرب استاج رأي لسعانات حسن شيخ محمود يوم حرون كواحد ليه هاي
Puntland burburkeeda yani Puntland burburkeeda waxa idin kale ka tashanay waxa burburin ka dhaana malahan Puntland idinkoo dhisnay federaalkoo dhisnay bay dhisnayd ayadaana dhistay marka waxa ay ka hadli karaan xataa Sheekh Maxamed horta waxa leeyahay gurigaaga xoreysa guriga aad leedahay al-shabaabka hooyooyinka ka xoreyso islaamahaaga marka ka bacdi Puntland ka hadal midkan xamsana waxaan leeyahay maxruum baaba taabadu awala ku sheegay madaxweynuhu afhayeenkii baa lagu yiri yani xasan Sheekh Maxamed gacan yaradiisii baa taa waxba marka laga tashanmayo kale kursiga daarood baa ku matashaa daaroodna xoo uma tihin Puntland waxaan ku leeyahay waxaas uma joojinayso hore dad waxa hore uga dhiifoon baa wada madaxweynaheena sharafta leh Saciid Cabdullaahi Deni waxa leeyahay tankii waa mahadsantahay madaxweyne insha Allah 4 sano soo socotana waxaan rajaynayaa inaad kursiga ku fariisatid aan sii maamulshid tankii waa leeyahay madaxweyne soo dhawlaan wadawaa wala soo aragtay xasan Sheekh Maxamed iyo Xamse Cabdi Barre oo dhahay Puntland way burburaysaa hadii joogin garab istaaga reer Laascaanood waxaan u arkaa xasan Sheekh Maxamed oo madaxweynaha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka ummadda loo wakiishay inay dalka iyo dadka saxan xaq bay u leeyihiin laakiin arinta hadda ay ka hadlayaan Puntland burburkeeda sida ay ayagu hadda leeyihiin sidii laga sugayay iyo wixii laga maleynayay midna maaha inay wax saxaan oo dalka iyo dadka saxaan oo wax u qabtaan oo mideeyaan baa laga sugayay waxaan leeyahay taas waxay ku tahay meel ka dhacday waxay ku tahay dhammaan qarnimada Soomaaliya iyo ummadda Puntland waa jiraysaa waxaan aaminsanahay inay 24 sano kor u dhaaftay maskax caafimaad qabto fadhiyadana ay leedahay hoggaan wanaagsan oo lagu kalsoon yahay oo la aaminsan yahay dalka iyo dadka hogaamin karaan oo xilka u hayo marka waxaan leeyahay aragtidaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dawladda federaalka Soomaaliya ha ka fiirsadeen waxyaalaha ay la wadaagayaan bulshada saasaan oran lahaa mahadsantahay